السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق وقاسم هالكنا وريا تي في كسدوا هذا برنامج قلبتا maanta waxa ila jooga marti fara badan waxa ila jooga gudoomiyaha xisbiga siyaasiga ah ee udub dalkan Sweden Cabdi Cali waxa kale ila jooga gudoomiyaha Axmed Xogayaha Axmed Cawaale oo isna laanta wicid ee dalkan Sweden waxa sidoo kale barnaamijka marti noogu ah xogayaha guud xisbiga kulmiye oo wadanka booqasho ku jooga marka barnaamijka nala socda hadda waxaan barnaamijka ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha xisbiga udub Cabdi Cali ku soo dhaw barnaamijka mahadsantahay waxaan kale ku soo dhaweynayaa Axmed Cawaale ku soo dhaw barnaamijka hadda mahadsantahay haddaan ku horeeyo adiga Cabdi Cali fal horta dadweynaha ku daawanaya caalamka jooga aan ku garanahay horta soo sheeg qofka tahay aniga magacaygu sidaad u sheegtay waxa la yiraahdaa Cabdi Cali Warsame waxaan ku noolahay wadankan Sweden ilaa 22 sano hadda ama 22 sano hadba sida loo yaqaano waxaan deganahay magaalada Stockholm xisbiga siyaasiga ee udub gudoomiyaha tahay Sweden bal xisbiga dadkan garanayna ama dhalinyarada qurba ku kortay ama dadka caalamka jooga bal xisbigu wuxuu yahay horta marka hore in yar oo hordhaca xisbigu waa xisbi cid garan weyda maaha waa xisbigii dalka xukumayay muddo 8 sano iyo in ka badan waa xisbi qaran waana xisbi mucaarad ah hadda markii laga guuleystay doorashadii ugu dambeysay ee dalka ka dhacday sanadkii hore haddaynu gudubno Axmed Cawaale oo runtii adigu in badan TV-ga timid dadku wada yaqaanaan xisbigan aad xogayaha u tahay ucid xageemka siyaasaddiisa maraysa wallahi marka hore salaam wanaagsan baan dadka dhamaan ina daawanaya aan ku salaamaya salaanta islaamka waxaan ka yar horeysiinaya tacsi ka dhacday wadankan Sweden Cabdi Aadan oo aan saaxiibnahay wiilkiisa ku dhintay magaalada Stockholm ayaan leeyahay samariya iimaan dhamaantiin dadka Soomaaliyeed buu ka baxay iyo adigaba ilaahay samariya iimaan naga siiyo haddaan soo laabto su'aashaadii wallahi xisbiga cid kulli waa xisbi qaran waana xisbiga imka mucaaradka ah wuxuu yahay xisbi qaran waana hawlihiisana way socdaan dardargelin badanna waa lagu hayaa oo aad iyo aad imka maaragtay u laba kaclaynaysa halkuu marayaa imika doorashadii gudoomiyaha cusub wallahi horta dad badan baa ilaa xisbiga khilaafaad iyo waxa ku batay maaragtay waxyaabo maaragtay saxaafaddu aad u qoraysay muddadii dambe laakiin imika way soo afjarantay kadib markii la mudeeyay waqtigii uu qabanayay golaha dhexe iyo kongareesku dabeetana July 25 marka laga bilaabay ilaa August 6 ayaa labaduba sida la filayo isku dabagelayaan waxaana ilaa hadda muuqda dadka u tartamay ilaa 4 qof aan horta waan maqlay ilaa 5 way gaari karaan waana waxaan noqonaynaa maalmaha xisbiga ugu horeeyay maaragtay gudoomiyenimadiisii marka laga bilaabo tartan dad fara badan inta u galaan ay ku soo baxi doonaan maaragtay doorasho xaq oo xalaal ah berigii udub wadanka haysatay ucid iyo kulmiye mucaarad bay ahaayeen xoogan oo runtii isku biiray hadda maadaama labadiina mucaarad tihiin sidee bay xiriirkiinu haddaan Cabdi Cali su'aasha weydiiyo wallahi de kulli sida adigu wala socoto nin wariyaa tahay xaaladda dalka iyo xisbiyada dalka ka jirana xogagaal u ah marka waxaan u maleynayaa uma sidii berigii ay ahayd hore ee markaan anagu xukunka haynay uma firfircoona arinta mucaaradnimadu ee labadan xisbi ee wadanka ka jira hadda yani kaalintii laga rabay waxaan ku dhaliilayaa inaanay maaragtay ka soo bixin oo mucaaradnimadii la rabay inay muujiyaan iyo dhaliilaha dawladdu galaysa xukunka hadda dalka jira oo galayo in aanay wax maaragtay sidii la rabay aan wax uga qaban laakiin waxaan rajaynayaa waqtiyada soo socda wali waxaan ku jiraa waan maleynayaa in aanan darbaxadin ugu dhacay in aanan ka soo toosin laakiin waxaan rajaynayaa inaanu waqti dhow maaragtay is abaabuli doono oo aanu muujin doono kaalintii nagaga aadanayd mucaaradnimada dalka iyo toosinta dalka waxaa maqaalaa in xisbigiina aanu lahayn guddi fulineed iyo guddi golo dhexe oo badanaa imika la yiraahdo madaxweyne ku-xigeenkii iyo madaxweynihii hore ayaa iyo gudoomiyihii ayaa xisbiga ka muuqda laakiin xisbiga kale sida kale aanu active u ahayn aanu u shaqayn arrintaas aad u aragtaa adigu
wallahi kolley dhaliilo badan way jiraan. guddi dhexe wuu jiray dee walba wuu lahaa xisbiga guddi dhexe, laakiin waxaa laga yaabaa maadaama aanu ahayn xisbigii maxaafidka ahaa muddo dheer, wuxuunbaa dadki isaga qaateen dee in arrintu ay iska noqon doonto. waa yacni maadaamaanu dowladdii haynay in aanan xoog saarin dhinacii xisbiga, laakiin hadda abaabul weyn oo dhinacaasa ayaa lagu jiraa. waqti dhowna waxaa dhici doonta in la qabto congress weyn ama kulan weyn oo xisbigu leeyahay, laguna doorto guddigii guddi cusub oo dhexe iyo xisbiga dadkii maamuli lahaa. markee lagu qiyaasayaa sanadkan mise dabayaaqadiisa mise sanadka dambe? wallahi adigu sanadka dhexdiisa bilaha August iyo wixii meelahaas ku siman inay dhacdo, ama July ama September. ururkiinu xisbigiinu sidee buu arkaa ururka xisbiga udub maanta? wallahi horta waxaan weeyaan dastuur baynu leenahay inaku oo ina xukumayo oo ku siinaya doorkaad ciyaarayso moogta. markaad maxaafid tahay dee maxaafid baa tahay oo dowladdii iyo taladii waddankaaba adigii xisbi ahaan lagugu aaminay oo dadweynihii ay kugu doorteen, konsequencedeedana aad ku qaadaysaa ama maaragtay hadda wixii natiijo kasoo baxaa hadhow ay kuu gelaysaa maaragtay diiwaanka. annaku laakiin imika mucaarad baan nahay, udub waa isku soo dhowaanay. imika maanta Faysal uu soo degayay way soo dhoweeyeen dhammaan madaxdii udub oo ku jiro gudoomiye ku-xigeenkii hore ee madaxweynihii hore ku-xigeenkiisa ahaa ina waraan cadde Siciid Sulub, nin maaragtay ka maqnaayo uduba ma jirin. taasuna waxay tusaysaa maaragtay signaal ama maaragtay calaamad in mucaaradnimadii maaragtay inkastoona noqon karayn mitid sidii kulmiye oo anaku marnaba noqonaynin oo marnaba aanan islahayn noqda oo roolka qarannimadu aan mar walba xeerinayno. mitid maxaad ku wadaa? kulmiye sida mitid u ahaa kulmiye markuu mucaaradka ahaa waa la wada og yahay, qof walba wuu yaqaanaa taariikhda waa la wada hayaa moogtahay. laakiin inaku waxaan anaku ka yara duwannahay. horta anaku weliba u cid ahaan waxaan kaga duwannahay maba anaan dhadhamin mahalkan lagu maamay xukunka la idhaha. marka waxaan anaku markaa u aragnaa inuu dhexdhexaadnimo, mucaaradnimo, dastuurnimo, inuu marmarka qaarkood la iska liqo waxyaabo badan oo magaranaysaa aad heli karaysa inaad maaragtay adigu aad. marka anagu waxaan aaminsannahay annagii udub waxaan heli doonaa hab mucaaradnimada dastuurkuna siiyey aan ku maamulo, isla markaana aan ku tusaaleyno xisbigan talada haya in uu khaladaadkooda aanu ka faa'iidaysano si aanu maaragtay dadweynaha u tusno haddii anagu xilka aanu qaban lahayn waxanba may dhaceen, waxaanu may dhaceen. imika waanu ku farxaynaa marka khaladaadka badan ee ay kulmiye gelayaan waxay noo soo taraysaa un dhibco noo kordhaya bonus. cabdi haddaan ku weydiiye adiga berigii waddanka xisbigiinu haystay reer soomaalilannimadu meel sare ka saarneyd, kulmiyesa hadda waxaa lagu dhaleeceeyaa inuu Soomaali weyn xagga u xaqleynayo oo intaan xukunka qabsanna maaragtay lagu tuhmi jiray. seebad arrintaa u aragtaa? wallahi dee anigu sidaan u arka maahay, waaba sida dadka reer Somaliland ku abtirsado oo dhamma ay u arkaan. xisbiga xukunka hadda haya ee kulmiye la yidhaahdo, arrintii muqadaska u ahayd dadka reer Somaliland ee ahayd inay Somaliland gooni isu taagto, waxaad moodaa inuu ka xagliyey oo dhinac kale uga jeestay. dee waad aragtaa wufuudda uu dirayo kulamada ka dhacaya ama loo qabanayo dadka dowladaha Soomaaliya ka jira, taasoo aan dhicin berigii hore aan xukunka uduhayay marna aanay dhicin. way fiican tahay in loo galo meel kasta oo ay ku jirto in aqoonsiga waddankeenu, laakiin waxaa jira hab loo maro. xataa dadkii xisbiga kulmiye ka tirsanaa ayaa ku wareersan habka ay dowladda xukunka hadda haysa ay u maamusho siyaasadda dibadda ee dalka. markii ugu horeysay waxayba xidhayba albaabkii inoo furaa ee ugu fiicnaa ee aynu adduunka ka gelaynay oo ahaa waddanka Ethiopia. waddanka Ethiopia waa waddan walaalaheena, waa waddan deriskeena ah, waa waddan weyn oo marka loo eego qaaradan aynu ku naallo aada looga tixgeliyo iyo adduunka intiisa kaleba. wuxuu inoo fidiyaa mucaawimooyin aad u baahan, dhinac waxbarashahaado, dhinac dhaqaalahaado, dhinac wacyigelin iyo siyaasad kala haado. marka wuxuu ahaa dariiqii ama albaabkii aynu adduunka ka gelaynay. intaas oo kun oo arday
oo ama askar ha ahaadeen ama arday kale ha ahaadeen ayaa wax ku barta wadankaas marka markii ugu horeysayba horta wuxuu xidhay albaabkii aynu ka gelaynay adduunka. iminkana waad aragtayo bilahan ugu dambeeyey kulamo aan ku habboonayn, anigu sida ila tahay aan ku habboonayn in ay Somaliland ka qayb gasho ayay ka qayb galaan, waliba wufuud waaweyn u diraan. mararka qaarkoodna waxaabaad u eg tahay in aan wasiirka arrimaha dibadda iyo ninka madaxweynaha wadanka ka hay aanay tala iskuba ogeyn in nin waliba uu dhinaciisa u xaglinayo. marka arrintaas xukuumadda wadanka hadda ka jirta aad iyo aad bay ugu dhaliilanta. xisbigiina wax kama soo saarin ogsiidan cawaale xisbigiina wax kritiga arrinta kama soo saarin kama hadal taama loo oran karo xisbigiina xoogaa markay xukuumaddii ka wareegteen dhaliil badan umida soo jeedin umida la xisaabtamin xisbigan imika arrimahan ka hadlay sidoo kale waa laga yaabaa dhaliil waanu u jeedinaa, waana mass mediahana way ku qoran tahay, laakiin waxaa laga yaabaa in aanay sidii ama adiga aad doonaysay ama dad badan ay doonayeen aanan u dhaliilin. laakiin hadda iyo wixii ka dambeeya anagu waxaanu doonaynay dowladan cusub ee dalka ka dhalatay in ay bal xoogay lugaha isku taagto, kabacdina wixii dhaliila ee constructive maaha cay iyo aflagaado iyo waxa wixii constructive ee dhaliila ee aan u aragno marka in aanu ku dhaliilo. marka kama maqlin meesha waanu u soo soconnaa, waanu u soo jeedin doonaa dhaliilaha ay leedahay iyo waxaanu isleenahay waa lagu sixi karaa. hadda awal ku siday adiga waxa taariikhda qodobkaasan maartay doonay ka hadlo maartay anigu waxaan aaminsanahay ilaa haddana xisbiga dhexdiisana kaga wacdiyaa xisbiyada kalena aan doonaynaa inay maartay had iyo jeer ay noqoto wax muhiim ah oo lama taabtaana in arrimaha dibadda iyo amniga siyaasad midaysan laga yeesho. sababtoo ah cadow kulmiye gooni u leeyana ma jiro, cadow udub gooni u leeyana ma jiro, maartay nasteex kulmiye gooni u leeyana ma jiro, nasteex gooniyaha u cidana ma jiro. waxaan la diidan yahay waa Somaliland iyo magaranaysaa weeyaan. marka hal cod oo mid ah inaan ku hadalno arrimaha dibadda waxay u baahan tahay inaynu noqono active. anigu waan aaminsanahay inaynu active noqono, inaan sharar badan caalami ka qayb galno, laakiin waa inaynu dadweynaheena maartay na soo doortay iyo mandate leena siiyey iyo waxyaabaha dadka loo xisbiyada iyo golayaasha iyo wax oo dhan inta si fiican loo badliyo dabeetana iyadoo la dhan yahay oo wixii la isla og yahay erga ma cabsootee qofka tegaya markaa uu noqdo qof kalsooni buuxda isku qaba oo wuxuu ku hadlayana ah afkii dadweynaha dadkiisa ka dambeeyaan hadhowtana lagu taageeray mugdiya la gelin karin magaranaysaa buuq laga dhalin karin. marka anigu waxaan leeyahay xisbi kastaaba ha qabto maaragtay hoggaanka haddii uu kulmiye wax wanaagsan qabto imika sii hagaajiyo meesha hadhow haddaanu kala wareegno de waxaanu imanaynaa meel wanaagsan oo meel laga istaadha leh. imika udub markii laga wareejiyey kulmiye waxay heleen chance fiican oo udub 8 sanadood soo dhisaysay iyo in cigaalkii ka horreeyay oo lacag la sameeyay wadankii xuduudadii la gaadhay ciidamadii aad loo dhisay oo maaragtay ciidamo capable la sameeyay oo tayadoodii la hagaajiyay. macnaheedu kulmiye ka faa'iideystay midhihii madaxweyne walbana waa run wuxuu ka faa'iideystaa midhihii uu beeray madaxweynihiisa ka horreeyay. marka anagu macnaheedu waxaanu aragnaa in sawirka weyn la arko oo la wada meel loo wada laado wax kubadda haddaynu tiim nahay de meel un baynu wada laadaynaa. waxaanu isku haynaa waa arrimaha gudaha, waxa weeye caafimaadka, waxa weeye iskuullada, waxa weeyaan annagu dadkeenu xoogga saaraynaa kuwa masaakiinta mise tijaarta. haddii kulmiya doonaya inay tijaarta u xidhaan magaalada iyo suuqa iyo meel walba taas iyaga waayo waxa laga yaabaa inay dadka codka ka helayaan ay noqon doonaan kuwa hadhowta tijaarta ah. laakiin annagu haddii aanu meesha nimaadno waxa laga yaabaa inaanu tijaartaas ay ugala wareegeen imaka total annaguna aanu dhow ugala wareegno. habkaa loogala wareegaya hadduu imaka uu Siilaanya dejiyo Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanya madaxweynaheenu hadduu hab wanaagsan ugala wareego heshiisyada caalamiga ah oo uu maro wadooyinka heshiisyada caalamiga lagu marayo looyaradu wada hadlaan la isu yimaado dabeetana marka dambe la siiyo wixii baasiin dibadda ka yaala iyaka ay soo xareystaan lacagtii gudaha taale ay la kala wareejiyo suuq cad lagu la kala wareego oo maaragtay imaka magacyada soo baxay mar walba aan maqlayno xirsi baa waxa yiri annagu ma naan dooran xirsi ma naan dooran cukusala ma naan dooran waxaan dooranay Maxamed Maxamuud Siilaanyo madaxweynaha iyo waxaan waliba wax ma naan dooran kaligiina ma naan dooran waxaan dooranay xisbiga la yiraahdo kulmiye aanu dooranay kulmiye haysu tagaan shir haysu wada qabsadaan meel walba haysaga yimaadeen la cargaabay la saylac arrintii wixii go'aan ah ee wadanka saameyn ku yeelan kartaa hal la budliyo oo xisbiyada mucaaradka la budliyo oo dadweynaha la budliyo oo journalistka la budliyo oo qof walba la qanciyo. cabdi waa sax sidoo awaala sheegay runtii wuxuu baad moodaa
dadkii xataa inaga dadkan qurbaha jooga keli maaha xataa dadkii dalka joogay waxaa mugdi kaga jira ma Axmed Silaanya ayaa xukuma dalka mise ninkan Xirsi la yiraahdo marka waxa weey Xirsiga waa kuma dadka daawanadana gareynay bal waa magac uma sheegay Xirsi waa nin ka shaqeeya madaxtooyada oo kaaliya waa malaynaya ninka Maxamed Axmed Silaanya shaqaalaha madaxtooyada xukuma marka waa shaqaalaha madaxtooyada madaxa shaqaalaha madaxtooyada la ilaahay malaynaa marka ninkaas unba warkiisuna soo gaara runtii adduunkana uu gaara marka kale daliil weyn ba xaga ka jirta in uu Silaanya dalka xukumo iyo inuu Xirsi xukumo tan u soo galay aniga meesha waxa weeye dalkan aynu ku noolahay Sweden xisbiye badan baa ka jira arintu marka ay ku sugan tahay dhinaca khusayso dhinaca nabadgelyada waa in madaxda xisbiyada oo dhan la ogeysiiyaa waxa uu qabanayo ay dawladdaas marka wadanka haysa ay doonayso dhinaca nabadgelyada inay ka fuliso wada tashi marka waxaad moodaa inaanay dawladda kulmiye in aanay wax wada tashi oo dhinaca nabadgelyada ah ama mawduuc cad oo dhinaca nabadgelyada ah aanayba ka lahaynba dalka Somaliland ay tahay un qof kasta iyo dad yaro gaar ay ujeedo gaar leeyihiin oo ay doonayaan maartay inay iyagu meesha maamulaan ama ku gaaraan waxaad ka wada yaani marka go'aan la gaarayo amba wax la sameeyo waxa haboonaan lahayd in dawladdu la tashato xisbiyada kale dhinaca nabadgelyada khaasatan iyada xisbigeeda iyo macnaheedu anigu waxaan aaminsanahay dadka Hargeysa jooga ee golaha fulinta ku jira ama golaha dhaxarta Hargeysa ma wada joogo xisbiga iyaga iyo xisbiga kala toona marka dadkan imika Hargeysa jooga waa tiro yar oo kamid ah xisbiga kulmiye ama xisbiga wacid ama xisbiga udub 10 goor baan kula hadalno aanu xisbiyada dhan ugu tagno ku kariyo weyn xisbiyada dhisan oo daahriyaale aanu maartay aaminsaneen ba xisbiyada iyo waxanba waanu ku kari weyn Axmed Maxamed Silaanya 3 goor madaxweynaha halkan 4 goor 2 goor halkan ugu yimi maartay 2 goor baan kala hadalnay wadankan hadii xisbiyadu u kacaan oo talada wadanka iyo baarlamaanku isku xilmaanay golaha deegaanka oo xisbiga talada ka soo goodo waxayna ka khaldam karaya ma jiro way maskaxa fara badan ba isku tagayaan marka waxaad aaminsantahay yani in xisbiyo badan la furo yani ma horta furista iyo kama hadlay wax sheegay ma jiro ama hala badiyo muhiim ba maaha waxa muhiim ah xisbigan ma shaqeynaya oo ninka Ceergaaba jooga ama Saylac jooga ama Laascaano jooga talo ma ku yeelan kara mise intan Hargeysa joogto ba press release inta la soo saaro loonaya waxa gaaray xisbiga hebel ba gaaray waxa ma aanu xisbi qoro ka kuma dhaleeyo saddex xisbi ku dhaleelayeen dawladii hore ku dhaleelay tan imikana wax badan oo imika ka soo naasacad oo yakiiba baday ma garanaysaa arkaysaa sida ay soo dhaqmayaan marka annagina marka ma aragno marka inaan nano war xisbiga annagna dhisa hada iyo ku xisbigooda dhisaan xitaa faa'iido lagu jirta waayo kulmi xisbiga maxay ka qaldan yani kulmiye maxay macnaheedu anigu markaan eego waxyaabaha anigu inkastoo xogayii joogo ay ahaad booneyd inaan wada fadhiisano oo live noogu jawaabo adigiiba sidan imika u qabtay hawshii marka anagu waxaan leenahay inta kulli baysa ka jawaabi doonee anagu imika waxaan maqlaynaa inuu kulmiye arrimihiisu ay nala mid yihiin annaka sida yani qaabkii yani inay dawladii iyo hadalla iska soo burinaya ay ka soo baxayaan taana macnaheedu waxa weeyaan wada tashiga yar marka aragto laba hadal oo iska soo buraya oo laba nin oo madax ay iska daba sheegeen oo publica soo galay waxa weeyaan macnaheedu arinta lama aad looma bislayn weeyaan moogta ama ucid ha ka timaado ama ha ka timaado kulmiye anigu ma qabo imika xisbi aan ka jirin ma jirto mid walba wax gooniya la isku haystaa marka waxa leedahay khilaafka intuu xagan wax gooniya la isku haystaa oo ka duwan yahay waxa weeye mucaarad baan nahay waxaan leenahay barnaamijkii hore aan bedelo fariintii dadku inagu qaadan waaya aynu ka bedelo aynu keeno waji kale mala dadku fariinteena may fahmin aynu wax bedelo baan anagu isku haysanaa udub waxa isku haystaa isaa ka jawaabi doona laakiin kulmay waxaan maleenayaa inay isku haystaan xisbiyada ma la furayo lama furayo waayo odaygu idinku soo aragtaan taas xisbiga taa weyn ka hadli doonaa aniga ka hadlayo anigu waxaan aaminsanahay hadii la furo iyo hadii la xiro iyo hadii inaan waxba soo siyaadinayn sababtoo ah ninka mid ka shaqaysin kari waayo ama laba ka shaqaysin kari waayo xabadii uu ila xaba kale ugu soo rara wax allaaliya waxay talayso ma laha waayo imika dadka cusub ee la leeyahay way soo baxayaan oo faraacad cad kulli siyaasadda ku jirjireen anigu ma magacaabay rag badan laakiin waa la wada ogyahay ragga ku jira maaragtay imika u halgamaya inay xisbiyada cusub furaan waxa weeyaan rag ku jira siyaasadii oo imikaba kulmiye ku qasan oo maaragtay ku dhex jira marka anigu waxaan leeyahay furidda iyo xidhiddu waa meesheeda bal horta waxaan jiraan ka shaqaysiino midho geed saaran midho gunti ku jira midho geed saaran looma daadshee
haddaynu ka shaqaysin kari weyno 3 xabadood sidee baynu uga shaqeyn egas iyo xisaabta marka aljabra laga shaqeynayo ninku hadduu ka shaqeyn waayo maaragtay aljabrada simple-ka uu yiraahdo ii gudbiya egas square-ka waa wax la yaabo moogta imika dhaliisha aad soo gudbinaysid adaad concrete yani maxay tahay dhaliisha kulmiye amba dawladda waddanka haysata imika aad leedahay yani waxaasay ku fail garoobeen waxaasna way qabteen oo ku hagaagsan yihiin intii waddanka haysteen imika ku imanaya oo imika lacagta la bedelayo kale waa waxaan qof walba ku taamay xisbiyada mucaaradka waxaan ku taamayna ka mid ahay sax oo udub laga kari waayo ha yiraahdaan kulmiye hor taagnayo hadii doon ha yiraahdaan oo imika ayaga fasaxay ha yiraahdaan waxay doonaan udub ha tiraahdo laakiin udub waa laga kari waayay lacagta gaarsiiya laakiin waxay ku guuleysteen baa jiray oo xuduudkiina baa jirtay dimuqraadiyadii bay ku gaadheen maanta kulmiyeemka yani kulmiyeenu soo noqonayna kulmiyeemka waxa weeyaan lacagta way ku guuleysteen iskuuladan lacagta ay ka joojiyeen way ku guuleysteen wax ilaahay loogu mahadiyo ama ana qaban la ama qaban la goolka cidda dhalisay muhiim ah sax anigu waan ku hambalyeynaya kuwaas laakiin waxaan ku yara dhaliilayaa waxyaabo ama aqoon darra keenta aanan fahmin ama aanan fahmin in maaragtay wada tashi la'aan jirto sida imika maaragtay shirkaddan total marka laga wareegayo kale waxay ahayd waa shirkadii quraheed ajnabiga ahayd inay la joogtay haddii heshiis caalamiyan laynala galo waxa jira ma garanaysa international relationska waa inaad qadarisaa maagtay maalka hantida sumcadda caalamka kale markaas ictiraafkaagu uu noqonayaa maanta mid muhiim ah oo hirgeli karaya marka anigu waxaan aaminsanahay inaan la xiri karin dad maaragtay hanti ku leh waxa lala baxsan karana aan ahayn haamo dhul ku yaala marka in looyar la isu diro inay ila qumaneed aniga in looyar la isu dirsado oo xitaa loo ogolaado in wixii dabada ka yaala hantiya ay soo hooyaan baasinadii magarasa badda soo socday ama wax soo socday alla qofka haddii habeenkii kala wareegto sida militariga kacaankii askartii afweyne magarasa waan la wareegay warshada balcad waan la wareegay waxaan ma wad la wareeg kartaa waxa kooda yani process la maro oo loo yar la isu diro oo dabeetana nimankan iyo ko heshiisyada kale soo socda si aan wax yeerin lala xisaabtamo niman sharaf leh oo 10 sano baasiin la siinayay oo wadankan oo maaragtay aan shil haysan inoo furay albaab badan waxa kale oo kamid ah magaranaysa waxyaabo badan oo maaragtay anigu aan tiraahdo taas horta ugu weyn iyo maamulka basiisaba magaranaysa marka qof laga bedelayo ama qof laga xirayo ama waxa la xirayo in qofkii loo waayo waxay ka caban jireen joornaalada lama xiri karo lama caburin karo imikana waa la caburiyaa waxyaabo badan baan islahayn maagta mudaharaadka kamid ah mudaharaadka anigu waxaan aaminsanahay haddaan anagu meesha talada qabano habkan loo maamulo waa wax dastuuri oo qofku xaq u leeyahay marka in booliis caadi loo sameeyo qofkan mudaharaadaya maalba rabshadahan qof ku dhimanaya ee wali soconaya wali arintii udub may dhamaanin kulmiye kamay faa'iideysan khaladaadkii udub waa kan wali boorama iyo meel badan inta laga mudaharaado rabshado ka dhacaya marka hab mudaharaadana dadku samaysan karaan isla markaana aanay rabshado u dhacayn oo silmi ay u dhacayn waan waxaan leeyahay iyagoo dhan anigu waa arin inaga aan wali aanan aad dad weynina u fahmin dawladuna aanay maarta u saarin wax sidii loo habeyn lahaa haddaan cabdi cali soo noqono marka adiga dhaliishaada dawladdan waxaan dhaliisheeda horeysiiyo waxyaabahan ku amaanaya way jiraan lacagta la bedelay anigu aragti kalaan kale dhinacan total ayaan ka qabaa على كل حال أنا هذا دليل شيء هوريسية ومركب وجوه الرئيس مركب حكم كدولة عصبية الله وركتي dadkii shaqaalaha ee masaakiinta ahaa ee wasaaradaha ka shaqeynayay ee lagu tuhmayay in uu udub ama ucid uu ka soo jeedo waa la xasuuqay horta halka waxa lagu tuntay sharaftii qaanuunka ka dhaaf waa laga saaray dhul shaqadii waa laga eriyay lama laynin laakiin waa laga eriyay shaqadii baan ka wada wasaarad kastaba oo kamida wasaaradaha dalka ka jira taas waa mid garay yani waxa lagu tuntay xuquuqdii qofka muwaadinka ah shaqaalaha ah ee reer Soomaaliland uu lahaa waa lagu tuntay cid dawladdu waxba kama dhihin mucaaradkuna wax weyn kama qaban taas waa koowadan ku dhaliilaya waxaan kaloo ku dhaliilaya arinta ugu muhiimsanayd oo ahayd dhinaca nabadgelyada ayaa iyadana gees laga maray because waxa weeye nabadgelyadu waa arin muhiim ah dad dhowr iyo 10 sano ka shaqeynaya meesha khibrad u leh wax la socda wax kastaba sida isugu xidhan yihiin ayaa habeen laga qaaday oo qof aan waxba ka ogeyn meesha ayaa la geeyay marka iyaduna madaxa isla gashay
waa markii ugu horeysay waa kii ciidamo aynaan garanayna ay kasoo degeen xeebaha wadankeena. Dhinacii nabadgelyadana waa taas. Dhinacii Somaliland waa dad qabaa'ila, qabaa'il wada dega weeye, weligoodna way islayn jireen, weligoodna way heshiin jireen. laakiin hadday arrintu siyaasad noqoto waa arrin xun. Arrinta bariga ka dhacday oo kale waxaa loo diri jiray oday dhaqameedyo arrintaa qaabilsan, ciidamo dalku leeyahay may geli jirin. taasna waa qalad dhacay meesha. Dhinacan galbeedka sida oo kale waxaan kale oo aniga aan aad iyo ugu dhaliilayaa dowladda Axmed Siilaanyo in inagu weli umaynaan bislaanin dimuqraadiyadii. waa waxaynu hadda kabkabayno, abaabulayno, aynu samaynayno. waxa weeye dowladaha qabaa'ilka degan dhinacyada Somaliland yani matalaadooda way ka maqan yihiin dowladda. dhinacyada degan galbeedka iyo barigaba waxaa la rabay in saami goodii la siiyo. waa arrin ay dowladdu ka gaabsatay ama ka gaabisay. waxaa kaloo aniga aan aada ugu dhaliilayaa, yani aniga hadda waxay ila eg tahay, ama dad badan oo aniga fikradeyda aaminsan waxay ila eg tahay meesha dowlad maxaa la yidhaha shirkadan dahabshiil ayaa raad weyn ayay ku leedahay arrimaha siyaasadda ee waddanka. waxaad ku garanaysaa meel kasta oo mashaariic dhaqaale ay ka jiraan ama dowladdu faraha la gasho iyaguna way kula jiraan. dahabshiil waa nin reer Somaliland, waa nin horumar weyn sameeyey, waan ugu mahadinaynaa. laakiin sida dowlad loo maamulo iyo sida shirkad maxaa la yidhaahdaa xawaalad loo maamula aad bay u kala duwan yihiin. marka waxyaabaha anaga aan ku dhaliilayna waxa aan ku ammaanaya waxa weeye lacagta ay dowladdii hore bedeli weyday ee ay bedeleen aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. waxay ku mahadsan yihiin oo kale arrintan iskuuladan arrintan total horta waa shirkad weyn. waddankeenna marna kamay dhicin baansiin la-aani ama baansiin xumo oo intii ay shirkadaasi xukunka ku jirtay ay qandaraaska haysatay si kastaba ha ku ande. laakiin waxaan ku dhaliilayaa waxay ahayd un meel shirkad dad gaara lagu naasnuujiyo ayay ahaan jirtay. marka waxaa fiicnaan lahayd sida oo Cawaalaba sheegay, haddii la doonayo in laga wareejiyo in lagu wareejiyo habka uu sharcigu farayo, process la maro. waana in lagu wareejiyaa shirkado waaweyn oo baasiinka dalka keeni kara. nin ganacsada ama jeebla ah oo beri aan ciidaba adduunka ka aaminaynin in lagu wareejiyo ama la yidhahdo baasiinka keen waa yani aad bay u xun tahay. waxaana fiicnayd in tender la furo oo la yidhaahdo tender la furo. may hadda mass media waxa ku qorayd in already dad leeyihiin annaga nala siiyey nala siiyey. marka waxyaabahaasoo dhan ayaa maaragtay ayaan nabadgelyada aad iyo aad bay ugu guuldaraysteen. because magaalada Hargeysa anigu waan tegey, dhowr jeer baan tegey, 3 habeennimaan lugeyn jiray, wax dhibaateeyeyna maan arag. haddana harka gale ayaa maaragtay lagu baaranaya. marka dhinacii nabadgelyadana aad bay ugu guuldaraysteen, midii guud iyo midii gaara ee magaalooyinka gudahoodaba. waan gartay iminka arrintan aad ka hadashay dahabshiil oo kale guudkaad ka martay sababta dhaleecada aad ku dhaleecanta dahabshiil iyo dowladda haddaad hoos ugu daadegtid si dadku ay u fahmaan maxaa dahabshiil iyo dowladda isku xidhay. dahabshiil waa company lacagta xawila oo bangiga saasoo kale u shaqeeya, dowladduna waa gooni. marka maxaa dhaliishada usoo jeedinta dahabshiil? dowladda waxaan usoo jeedinaya dowladdu waxay ahayd waa dowlad yaroo aan cidi ixtiraafin, dhaqaalena aan haysan. dahabshiilna nin dhaqaalahayuu ahaa. kambaynkoodii ay dowladda ku muujinayeen ay dowladnimada ku doonayeen inay xukunka qabtaan uu ka qayb qaatay. cid kastana way og tahay. markuu nin lacag leeyahay adduunka oo dhanba ama halkan ahaato ama Somaliland meel wax gashado isaguna shuruudu ku xidhaya. shuruudihii ku xidhay ayaa ahayd in isagana markuu wax bixiyo isna wax loo fuliyo. marka haddii wax bixiyo isagoo lacag bixiyo dowladdu maxay sayna dowladdu waxay siisay horta waad ogtihiin idinkaba wasiiro badan bay siisay, mashaariic badan oo
in la rabay tender loo fidiyo oo dadka loo fidiyay bay iyaga isaga ku wareejiyeen waxaa ka mid ah sibirkii berbera oo kale lama gaarin laakiin waa wax lagu socdo tan batroolka ayaa la filayaa in ay isaga gacantiisa gasho marka waxaad moodaa in xidhiidh aad iyo aad isugu dhow oo u hooseeya uu ka dhexeeya dowladda meesha ka jirta Somaliland ka jirta iyo shirkadaas arrinta dahabshil wax badan aan kama oran karayo waxay horta qof sharci nooga yaalo qofku inuu lacag kaambiin ku bixin aanu ku bixin kun goor hore lama dhigin oo waan ka hadlo lama qorin lama oran qofna inta ka badan ma bixin karo oo xeerka maartay waa in marka hore xeer la sameeyaa lagu xakameynayo waxa lacag bixin karo midda kale nimankan koonto uu ku shubay oo ilaa hadda la inoo cadeyn karayno iyaduna ma jirto ma garanaysa marka nin wax siiyay un baynu tuumaynaa taas waa meesheeda صح laakiin anigu waxaan doonayaa waxaan maartay cadaaladdu shacabka u saamayso in madaxtooyada ka fogaato iyadu wixii inay faraha kula jirto wax walba qaybintiisa hadhowto waxay ma doontaa in boosaska u soo daadegto sidii barigiisii aad bare dhacday inuu ninkii boos doonayaan xitaa madaxweynaha ma haday ka baxsantay ma anigu malayn maayo ma meynaan gaarin qiyaasaha caynkaas ma meynaan gaarin laakiin waxa weeyaan wadda aynu soo marnay aynu ku gubanay oo khaladkeedii dadku beer ka qabaan ma baahayn waxaan imika waxa weeyaan dadku imika wali waxaan may dhicin laakiin beertii hore qabeen baa waxaan saskan naga jiraan mogtay oo xisbiyada mucaaradku aan ka sii degaynaa fiintu waxay ka sii qaylinaysaa magaraysaa waxa dhici kara anagu waxaan diidanaa nin maal qabeen oo lacag leh in uu madaxweyne ay qaraabana yihiin inuu hanti ay ku xidhiidhi karaan marka anagu ma hubno in wax maxamara ilaahay bay goog anagu maalinta iyo qiyaamaha soo baxi maayo laakiin waxaan leeyahay dawladda waxaan kula dardaarmaynaa annagoo xisbi mucaaradahoo wadaniina ah inay ka fogaato madaxtooyadu inay faraha la gasho waxyaaba aan hadhow ka dabaalan karayn oo kuwa ka dambeeyaan raad u noqon karta awr qalloocan cali imika awrkan halku maro riyaale wuxuu maray waxyaabo badan bay ka dambareen kulmiye markii hore ay ka dhaaran jireen ka dambana maaragtay waxa laga yaabaa isagoo wixii ka dhaaran jiray inuu halkii un qaaday isaguna haddii ka gudubno cawaale iyo cabdi wax yar erey kale ku daraya dhinaca in sharcigii dhinaca mass media oo soo saareen waan aad baan ugu diidanahay maaragtay ay ku adkeeyeen maaragtay in dhinaca mass media-da press freedom aburintaas haddii arrinta ka gudubno gudaha Somaliland oo xaggan Sweden gudaheeda nimaadno idinku waxaad tihiin hormoodkii xisbiyadan matalaya dalkan Sweden waxyaabaheena wax qabadka amba ictiraaf ha noqoto amba Somaliland ha noqoto in dad kala dhicisaan Sweden amba Scandinavian-ka maxaa qabataan idinku wallahi aan ku horeeyay anigu horta waxa weeyaan markii xisbiyadu markii hore dadku jaaliday ahaayeen jaaliyadahaas baa lagu hawlgeli jiray markii dambe xisbiya ay markaa inoo bedelmay oo inoo shaqeeya xisbiyadu baarlamaanka way ku xiran yihiin doorashooyinkii hore tan ka horeeyayna aad iyo aad baan ugu ololeynay si maaragtay dad aynu baarlamaanka ku leenahay usoo baxaan tiina way noo hirgeliyeen oo madaxweynihii way keeneen isla markii dambena maaragtay way keeneen axmed maxamed siilaan iyo mucaaradka ahaa faysal cali waraabana dhowr goor baa halkan ugu yimid iyana mar walba way qaabilaan marka xiriirka naga dhaxeeya waa xiriirka Sweden ay ku go'aansatay inay ula macaamisho Somaliland hab ka duwan hababka ula macaamisho faraqyada kale ee Soomaalida isku haysta صح waan gartay cabdi idinka ururkiina muxuu wax qabado oo la taaban karo runtii sida cawaale sheegay un weeye in arintaas isku soo dhaweynta Somaliland iyo Sweden de waxa nin wakiilaba noo jooga kale dhinaca wakiilka un baa loo maraa wixii anagu aanu markaa ka qaban karay aanu isleenahay nagaga aadana de waan ku taageeraa xafiis Somaliland kulada Sweden shaqeynayo oo shaqaale joogo oo arrimahan u qaabilsan hadana dawladda hore weydii wakiil baa jooga wakiil xafiis buu leeyahay markaa tabaan buu leeyahay xafiis buu leeyahay Hambage buu leeyahay waan gartay maxaa filaysaan mustaqbalka dhow in dawladdan imika siilaan iyo waxyaabaha muhiimka ee loo baahan yahay in dalka ku hogaamiso haday noqoto aqoonsiga haday noqoto nabadda ammaanka maxaa hadii adaadi kugu horeysay cawaale wax kelmad kooban ictiraafkan imika aad loogu maartay wareeray wuxuu ku imanayaa arrimaha gudaha marka waxa la yiraahdaa siyaasadda arrimaha dibadda waa harka siyaasadda gudaha marka horta dadka la isku mideeyo qoomin koona ilaa koona la mideeyo oo unity la sameeyo 3 milyan barbaan ilaa 4 milyan hadii 4 milyan aynu kala maartay ku hadlayno waxyaabo kala duwan
oo mid leeyahay anagu ma doonayno Soomaaliland midba wax ka sheekaynayo waxa weeyaan confusion baa ku dhacay caalamka horta marka hore dawladda waxaan ka rabnaa mideynta iyo isku haynta dadka qiimo kasta ku kacday macnaheedu i'tiraafku way ka horeysaa way ka horeysaa in xasiloonaan iyo nabadgelyo lagu noolaado i'tiraafka iyada ka horeysa taa markay ku guntadaan waxbarashada ayaa keenta magaranaysa horumarka haddii waxbarashada imika jaamacadaha la wada furtay imkuun jaamacadood baa la furay quality-gooda in la isku habeeyo waxbarashadooda iyana la hagaajiyo taana waa ugu muhiimsan sal buu dadku fadhiyaa kuma fadhiyo sal kuma fadhiyo sad buu ku fadhiyaa dadku haddaan dhaqaaluhu jirin dadku wuu baaba'ayaa wuuna qaxayaa wuuna baddu fulaya marka waxyaabaha inay qabtaan waxaan ku raacsanay Cawaale arrimahaas uu sheegay oo dhan waxaan kaliya ku darayaa marto in dhaqaale la abuuro waa arrin muhiim ah in maamul ka fog musuqmaasuqa inuu dalka ka jiro waa mid muhiim ah waxaanan ku darayaa anigu intaa uu Cawaale sheegay oo kale yani dawladaha ama dadka aynu isleenahay danta Soomaaliyeed ayaa ay wax ka qaban karaan in aynu xiriir fiican la sameeyno مثلا هذين إثيوبيا يجيبوتي وكل هذين إيرنا يعني كينيا هذين بلامي إن الدولة ده درس كنا خاصة الدولة ده سوين إثيوبيا إن حرير في عن أن لا يرانا أيان في الله أدبنكم هذا اللي هذا واحد شوقا ها سودا شيك waxaan ogeysiinayaa dadweynaha ku nool koonfurta Stockholm gaar ahaan xaafadda Rogsfed iyo Fasta in maalinta Khamiista bisha June tahay 9keeda loo sameyn doono xafladii qalin jabinta ardayda fasalka 9aad iyo dugsiga sare waxaana lagu qabanayaa qolka cuntada ee dugsiga Rogsfed saacaduna waxa weeyaan 4 iyo barka ama 16 iyo 30 marka dadweynaha iyo waalidiinta waxaan ku guubaabinaynaa inay ilmahooda ku dhiiriyaan tacliinta iyo waxbarashadana ka soo qayb galaan natiijadii ay caruurtoodu keeneen in halka uu ku soo xaadiraan ku arkaan xawal wad maasan tahay Cabdi Alcad wad maasan tahay hadda wax barnaamijka kala marti noogu ah oo sugaya xogayihii oo soo dhaweyn doona insha Allah hadii la yiraahdo aad baan isku mahad celinaya labadiinaba walaal aan jeclayn inaan xogayaha la kulano insha Allah kulli wala kulmi doontaa xogaha joogaya dhawaan waxa iman doona xogayihii halkan xisbiga kulmiye oo isna su'aalo weydiin doono su'aalahaas runtii waxyaabaha labadan muwaadin mas'uulka ay ka hadleen waxyaaba kamida marka ha kicina nasuga barnaamijka insha Allah hadii la hayraa mar labaad ku soo dhawaada waxa la fadhiyay marti xogaye Cawaale oo matala xisbiga Ucud oo ah dadka Stockholm waxa kale la fadhiyay Cabdi Cali oo imika ka baxay hadda studio waxaan ku soo dhaweeyay xogayaha guud ee xisbiga kulmiye mudane Kaysa Xasan Cige oo halkan booqasho ku jooga dalkan Sweden haddaan barnaamijka ku soo dhaweeyo mudane xogaye Kaysa Xasan Cige barnaamijka ku soo dhawo Warya TV xagan martibaan la joogay xisbiyada kala matalaya intaan noo imanin runtii waxay doonayeen kula kulmaan laakiin may suurtoobin waxaan doonay horta bal in dadka ku daawanaya reer Stockholm amba dibadaha jooga qurba jooga reer Somaliland amba Soomaaliya ha ahaadaan inaad horta bal warbixin yar oo guud oo kooban dalka naga siisid bismillaahir rahmaanir rahiim waa maadsantay martaqaadka walaadkii mataladay kulankan dalkii Soomaaliland uu nabdoona aad baa loo wanaagsanaa dalkii wadagta dawlad cusub ka dhalatay oo kulmiye waxaad maamul cusub yimi xukuumad cusub timi isbedel baa yimi isbedelkaas oo keenay runtii kii oo ku galay doorashada kulmiye ahaa in isbedelka lagu sameeyo waxa dhalatay xukuumad cid walba ka muuqato muraayada oo cid walba iska arkayso oo aan kulmiyo kale ku koobnayn mujtamaca oo dhan bulshada haday noqon dalka gudihiisa dibadiisaba ay ka qayb galeen dalku waa nabdoon yahay isbedelkaad imika ee kulmiye la kowsaday ayuun baa dalkii hadda uu wada haday noqon lahayd dhinaca horumarinta haday noqon dhinaca siyaasadda sideba xisbiga kulmiye dadka qurba joog ee reer kulmiye ay kaalintooda u buuxiyeen oo kale maadaama adigu ku dhaado ahayd marka hore qurba joog wadankiina markii doorashada la sameeyay dad badan oo qurba joog ay ku yimaadeen haddana ay dib ugu soo noqdeen sideba iyo xiriirkiina amba sideba kaalintooda u buuxiyeen waxa qurba joog de waa nin muwaadiniin oo Soomaaliland oo xaq u leeyahay ninka gudaha ku jira ayuu buu leeyahay kaalin muglana runtii way ka qaateen haddii ay noqon lahayd doorashooyinkii waliba qaar hadda dhaqaalaha
hadday noqon lahayd dhinaca qoraalada imika hadda xukuumadda marka la eegaba waxaad odhan kartaa malaa nus haddaan 40% ka badan ayaaba qurba jooga dhinac kasta ha ka matalaane hase yeeshee inagu anaan isku darabe marka qurba joog la leeyahay waxaan baynu isu qaadanaynaa marka halkaa la tago inaynu nahay niman second class citizen oo mar walba waxa la yidhahdaa war nimankii dalka sii joogay bayna cadaadinaya uno ninka qurba joogi waxa weeye waa nin darajada labaad maaha kii koowaad oo ninkii mujaahidka ahaa dhinaca buu iga soo celinayaayoo kii muwaadinka gudaha jooga ganacsi dhinaca nin dibadda ka yimi oo basaborg onesito oo caruurtiisii dibadda ka yimi oo dalkana markii maadaama rabshad gelinaya qas oo hore ninka caruurta maxaysiis banaka soo dhigtayo dalka haniga gelin marka dhinaca ka eegto wujaa dareen badan oo qurba joog keeneen hase yeeshee taasi waxaa kulmiyaa beeniyo dee waa ka 40% ka badanba xukuumaddii dee ka qayb geliyey hase yeeshee dee wuu jira dhaliil baa jiro oo dee dimuqraadiyadda ka mid oo marka la eego ninkii qurba joogga dee dalkii lama socdo waayo dee waxna waa siyaasad markaad noqoto duruufihii iyo xogtii iyo beelihii iyo sida laysugu xidhan yahay iyo waxyaaba badan baa ninka ka maqan waa nin dee daaqadda ka soo galay mar ay dee magacay ku bixinayaan wajiga soo dhacay iyo iska soo dhacay waxbay yani waxay kutusaysaa inuu dee ninkii yahay nin loo arkayo second class oo warbar ninka inaga ilaaliyay intaas wax qaribay runtii kaalin weyn bay ka qaateen qurba joogu dowladday ku jiraan xukuumadday ku jiraan laakiin marka inagu aynu dee runta ka hadlayno wax badan baa inaga maqan marka dalkii dee aad eegto duruufa yaalla dee ninku markuu banaanka ka tago oo dalkii tago dee wax badan buu la kulmayaayoo dee anaaba ka koowa oo berigii halkan ka tegey imka 4 sano ka hor dee sidan haya maanta dee wax weyn ayaa dee iska kay bedelayo haddii noqon lahayd xiriirkii dadweynaha iyo siyaasaddu halkay maraysa iyo sida la isugu xidhan yahay iyo sida lasaga soo horjeeda wax badan baa jira mudane waad mahadsan tahay dad badan baa waxay dowladdiina amba xukuumaddiina oo xisbigaaga uu dhisay ay ku dhaleeceeyaan in nabaddii faraha ka baxday intaanadii iman waxay la fadhiyey muwaadiniintan labada xisbi kala matalayay runtii arrintaa way ku tiitiiqsadeen sidee baad arrintaa u difaacaysaan horta dalkii nabadgelyo darra ma jirto waa wayna wada ognahay xaalado kala dhaco iska yimaada way jiraan ama tii horeba ha ka dhacaan ama tan ha ka dhacaan dadka qaarkii kulmiye waxay yidhahdaan xukuumaddii hore xukuumad waxay ahayd CID iyo police ka soo jeeda oo shaqadoodiba may ahayn maamul iyo administration iyo may ahayn iyo horumare waxay ka shaqayn jireen yaan wax dhicina ilaaliya tuuga iyo burcadda iyo ninka wax dhacayo ninka wax dilaya oo wax badan baa inagaga lumay tii hore oo nimanku niman security ay ahayn dhaliil badan baa darro badan baa yidhahdaa oo dee waxbaana ka jiro niman badan baa u badnaa nimankii meesha hayay dee niman aqoontoodu ay ahayd security ba ahayn oo waa la odhan karaa taa dee laakiin dalkii maanta wax la odhan karo security lama nabadgelyo ma jirta ma jirto dalkuu degan yahay dowlad baa jirta maamul baa jira laakiin dee wuu dhici karaa kanaynu joogno maanta Sudan ayaa habeen walba la isku dilaa habeen hore waata la dilay inanka Soomaaliga marka dee nabadgelyadu way iska meel walba waxay ku xidhantuun xaaladda markaa jirta iyo dee see loo waajo laakiin dalku waa aamin marka waxaa laga dharsanayaa dowladdii hore security ay aada ugu khatar hayeen markaa saasaan maaragtay securitygu ugu sugnaa mar kastaba maadaama booliis u badnaayeen iyo CID u badnaayeen dee iyaga laftoodu dee dhaliil badan baa jiro dee maamul baan jirin dhanna way banaanayeen dowlad booliis hadday dowlad booliis ay ahayd state police waa la odhan karaa oo wax kale may qaban jirin hadday saa tahay nimanka gobolladan bari oo kale maxay u degi la'yihiin marba khilaafka keenaya kiiska gobollada barigu dowlad tii hore tan kuma xidhna runtii horta gobollada bariga ilaha bayna badooda waa Soomaaliland bay ka tirsan xuduud baynu leenahay ilaah baa iskeen baday hadduu yahay bari kemiya hadduu gobollada dhexe iyo hadduu galbeed yahayba mar walba ninku waa Somalilander laakiin waxa la isku haya waxa weeyaan ama waa siyaasad wax la isku haya ama waa dhaqaale ama waa maamul haddii gobollada barigu ay leeyihiin maxaa maamulku uun Hargeysa u soo dhaafi waayey oo u soo gaaray gobollada bariga waa su'aal meesha ku jirto waa in laga jaahil bixiyaa haddii dowladdu leedahay warda ilan gobollada idinkaaba haysta gobol walba dadkiisii baa degan oo maamulaya gobol walba dadkiisii baa ninka madaxda ilaa mijaha waa dadkiisii maxay wax idinka xumi maxaa wax idinka xumi soo sheegan weydeen
ee idin faquuqay waa maxay dhibaatada idin haysataa u degil adil idinka baa ismaamulaya muwaadin halka fadhiyay oo Waa Cabdi su'aal Cali mushkil wuxuu ka dhawaajiyay arrintan gobolada marka laga hadlayo dawladda ka maqan yihiin oo labada daraf ee Soomaaliland dawladda kuma dhex jiraan ma taan ma aaminsanay horna ugu jireen oo wadaweyd gudoomiyaha baarlamaanka waxay jireen goortida gudoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanka hadda waa gobolada madaxweyne ku-xigeenku waa darfaha wasiirada waaweyn way leeyihiin maarayaasha yani meel odan karto way ka marin darfo maanta ma jiraan laakiin dad soo gaabisid maxaa khilaafkan maxaa keenay nabad darrada yani amaan darrada waxa keenaya horta dee qof waa dhac ka eego horta goboladan waa ogto maanta inaga dhibaatada ugu badan ee Soomaaliya ama koonfur ha noqoto kuwa aysta koonfur deglan ama Soomaaliland ba ha noqotee horta waa waxay loo jeedaa qabyaalad baa jirta ay ku arooriyay wax kalsooniyaan baa jirta nin walba wuxuu leeyahay haddii hebel uu qabsado meesha ma laga yaabaa inuu dhibaato idin keeno oo beeshaada ama deegaankaaga u dhibaato ku keeno gobolada barigu dee maanta gobol dul saaran xukuumaya culays ku haya ma jiro gobol basa ismaamulayaan haddii gobolada darfo ay ka cabanayaan barigu ka cabanayo maxaa maamulka noo soo gaari waayo waa gar way iman karaan way xisaabtami karaan miiska imanayaan miiskuu furan cid loo diiday ma jiro oo kundi xukuumadda iyo dowladda baarlamaanka ku jira laakiin haddii arrintu ku aroorayso beelaysi iyo waxaan ku abtirsadaa Puntland ama waxaan ku abtirsadaa meel kale dee runtii dowladda meeshii waa in dee qaran noqon mayno marka saamaynta ugu weyn ee maanta dhibaatada ugu weyn haysata gobolada bariga waxa weeye culayska ay ku hayaan Puntland maamulka Puntland ee akaarka reernimada ciyaaraya hotelka ku haya ka culays ku badan waa ka weeyaan maanta haddii la Afrika reeraha u kala baxdo de Nigeria waxa u kala baxaysa dhowr iyo 10 qabiil oo marna Ghana galaysa marna Mali bay galaysa marna Niger bay galaysa de xawso meel buu degan yahay haddana ilaa maanta reerkaygu halka uu degan yahay ilaa xudur baan soconaya yabay soconaysa taasi waxa weeyaan xuduud waxa la yiri charterka uu xidhigay xuduudii isticmaalka hal weegaado marka waxaad ka wadaa yani haddii la isku soo biyo haddii la isku soo ururiyo yani Puntland baa soo riixaysa mushkilada ugu daran waxa weeyaan maanta waa culays badan oo dibadda ka haya gacan shay ku jirta aanu ma qabo gobolada barigu in saluug ay leeyihiin wax gaar ah annaga lagu takoora ama wax gaar ah naga maqan way miiska way furan yihiin kale ku jira laakiin culays badan wada darrad inta uu toddobaadkii markii ay guddiga Soomaaliland u dirtay nabad xagga nabadda ay waxa soo wartay Puntland soo wartay wax kalena maaha waa nabadda la wado iyo qorshaha guddiga ay wadaan iyo developmentka la wado ayaa laga soo horjeeda marka dawladdiina ma la leeyahay xidhiidh Puntland si arrinta loo dejiyo ma la hadashay in badan bay Puntland hadii ahaan loo saarday arrimaha dibadda iyo dawladda laga hadlayo war dad waxaynu jaara ma kala marano dad bay naga dhaxeeyay hanti bay naga dhaxaysa ganacsi baynu leenahay daan isbadbaadino waxa ila tahay aniga igu muuqataa Puntland midba muuqda Puntland markuu leeyahay ma shaqeynayso xuduudii isticmaalku ee waxa shaqeynaya intii isku cida deemay soconaysa taasi soo kula maaha Nigeria bade waxay kala bixi kartaa inta soo wadan baa degtay joogahay ha sheegato soo galan deemay suurtoobaysa laakiin dawladdii hore marka imika ay Puntland leedahay dadka iyagii baa jooga Somaliland Ethiopia way joogaan Ethiopia dad ku abtirsada ayaa jooga maxay Ethiopia uga hadli waayeen kama hadlaan Ethiopia kama hadlaan dad baa ka jooga maxay su'aal uga hadlayaan waa su'aal la weydiinayna reer Puntland laakiin waxaan ku weydiiyay maxaa kale markii dawladdii hore ee Riyaale ay haystay meesha idinku mucaaradka haydeen dhulkan iyo xuduudan way deganaayeen maxaa keenay imika khilaafkan badan markii dawladdu meesha qabsatay horta may deganayeen oo markuu deganaa waa tii badan dagaal badan ba ka dhacay intii udub haystay waa tii xitaa khatarta oo galay madaxweynaha waa kii khatarta galay xitaa Riyaale isagoo degdeg loo soo careeyay dusha laga soo wareejiyay waddanka isagaba lagu rasaasiyay maxay yahay dhacdooyin fara badan oo dagaalo way dhaceen oo lama oran karo in arrintu qalaalso xog ku eegaya kulmiye tii hore tanba wuu jiraa laakiin qodobka aan ku sheegay beelaysiga kaasuma meesha mushkilada u ah laakiin ma laga yaabaa in dawladdiinu ay idinku xoog isticmaalaysaan oo ciidamo u direysaan halka dawladdii horena salaadiin iyo wada hadal iyo odayaal si kale wax loo xalin jiray dawladdii hore waxay nagu canaatay wax kamid ah waan iyo wada hadal baa wataan ma xoog isticmaal weydeen ayaaba kamid ah waxaan qabatii hore waxyaabaha ku canaantaan nagu canaantaan dalku kulmiyada waxa weeye waa dabacsantiin ma xaq ambiro ugu qaban weydaan ay yiraahdaan waayo waxaan may dhaceen
haddii gacan bir ku qabataan anna waxaan leenahay waar dee gacan dagaal xama taraye dee waan miss la isugu yimaado aad ka wanaagsan dawladdiina waxa lagu dhaleecayaa in xiriirkii ugu fiicnaa Somaliland ay lahayd oo ahaa dalka jaarkan Ethiopia hadda mar dhaweyd muwaadiniin halkan TV-ga fadhiday runtii way ka dhawaajeen arrinka Ethiopia sidee buu xiriirkiina Ethiopia Somaliland toddomaan garan waxa ay ka boodeen ama waxay ku dhalileen xukuumadda kulmiye ee xiriirka la leedahay Ethiopia xiriirka Ethiopia kulmiye leeyahay inuu ka sii wanaagsanaadii mooyaane horta wax iska bedelay ma jiraan ganacsiga sidii u socdaa wufuudisa u socotaa iskaashigii labada wadan ee xagga la dagaalanka argagixisada wuu socdaa imika lafteeda xitaa waxa ku maqan oo bisha koodoodii tagay gudoomiye xisbiga kulmiye gudoomiye ku-xigeenkii iyo xubin guddiga fulan saddex xubnood imika waxa marti qaaday xisbiga talada haya Ethiopia waa been qiimba taas waxa ku tusaysaa in horta meesha xiriirka jiro oo ilaa heer marka la gaaro xisaabta ay ismarti qaadaan oo ay xiriirkooda wanaajiyaan dee waaba tanaaba tilmaana umalayn maayo inuu jiro wax khilaafooyin isbedel waan gartay haddii intaan ka gudubno adigu waxaad ka mid ahayd 20 xubnood ee guddiga talbixinta furashada ururada halkee bay maraysaa imika furitaankii ururada ururada furitaankoodu dad badan ma la kulanay oo bulshada ka tirsan dhalinyarada haweenka aqoonyahanka culimada diinta salaadiinta hay'adaha jaamacadaha waxaan la kulanay commissionka waxaan la kulanay akademiyada nabadda waxaan la kulanay qoladan la yiraahdo nan sida actress-ka ay ku xidhan cid walba la kulanay nabadda fikirkooda way dhibtaan runtii in la hala furo muwaadinku xaq buu leeyahay oo dastuurka sheegay muwaadinka la doorto waxana uu doorto isna doorto iyo in la waqtiga la joogo ma haboono oo waxyaabo badan baa qabiya ah oo de markay aad iyaga dhageysato keenaya labadu way jiraan labadii warbixinta waan soo qoray runtii 6 gobol ee doorasho waan maray waanu gabagabaynay waxa yaraha kii weynagii galay dabaaldegiista 12 May 2020 dabeedna waxaan nibroota inta aynu ka boganayno hawl kala culus oo qaran baa inoo timi oo dabaaldegii iyo aqoonsi raadiskii iyo olole badan baynu galnay bal aan dib u yar dhigano waxay ugu muuqatay in iminka uu la gudbinayo dadkii yidhi hala furo maxay ku sababayeen maxay se tala ka bixinayaan kuwayaan la furin maxay ku sababayeen maxay se tala ku bixinayaan waxa kale oo la kulannay sharci yaqaan afar sharci yaqaan oo nidhi bal xagga sharciyada ila taasunba number 1 ka ah oo muhiim ah maxaa iyagu markii ay gunaanadeen way ka hadleen xuquuqda muwaadinku leeyahay way ka hadleen in dastuurka xitaa qodob sheegay uu leeyahay xisbi wax ka badan dalka kama talin karaan dastuurka laftiisa oo baahan laftiisu in xeerar qodobadii dib loogu noqdo xeerarkii wax laga bedelo laakiin waxay ku soo ururaysaa oo iyaga ka muuqata warbixintooda waxay leeyihiin waxa ka maqan meesha xeerkii nidaamka doorashooyinka kaasoo isagoo la sameeyay mooyaane aan la qaadi karin oo dadkii 14 lagu galay 2002 dee hal mar baa la isticmaalo isagoo shaqayn maayo marka waa in la sameeyaa sharciyada ku noqonaysaa xeerkii nidaamka doorashooyinka lagu kala baxay muwaadin halka fadhiyay oo ka tirsan xisbigan mucaaradka ee udub ayaa ka dhawaajiyay in bangiga ugu weyn Soomaaliya ama dahabshiil xawaalada la yaqaan ay runtii dawladda ku milsan tahay oo ay maal gashadeen warigii doorashadii ay idka caawiyeen dhaqaalaha saas arinta ma difaacaysan dawladda tiin yani waxay la tahay inaga cudur bayna haya aan waxaan filayaa inay waxba ka jiro dawladdu waa dawlad qaran oo madaxweynaheedii iyo ku-xigeenkeedii wasiiradeedii dawladda dejista dhisan meesha wax dahabshiilaya ma jiro dahabshiildo waxa weeyaan waa hay'ad madax bannaan waa company ummadda waa adeega oo gaar ah oo dee lama oran karo uu ku milmo dee laba iskeen karayo ma hodwaan dawlad iyo company private dee isma keen karaan ba isma milmi karaan laakiin inaga cudur bayna hayo marka maanta meel la ii doorto meel la ii magacaabo marka wax loo war xaq ka soo jeeda waa kuma la oran maayo muxuu yaqaana la oran maayo muxuu dadka ku soo kordhinaya la oran maayo waa maxay contribution-kiisa ummadda xagga horumarka iyo wax loo iyo habalonaya haddii la leeyahay madaxweynaha iyo dahabshiil waa isku reer taasi wax meesha ku jira maaha kamadigaas waa kamadi hore lagu soo adeegay ummadda oo waliba abaal ku leh oo ummadda ka soo saaray dhibaatooyin fara badan inuu ognahay iyo dalku markuu burbursanad ogeyd dee dawladana tii riyaalo way jirtay kowdhe marka haddii kala maanta maxaa ay way ku milantay dee reerin buu jeedaa mooya tii riyaalo wax walba ku milantay
wuxuu odhan waayey marka waxba kama jiraan oo iska dacaayad weeyaan dalkeena jaarka ee Soomaaliya 20 sano dhibaato ka jirtay imika 20 sano Soomaaliya nabad baa ka jirtay dawladdii riyaale waxa ay u qabatay oo maanta cad oo la garanaya oo la sheegi karo runtii aanu ma hayo dawladdiinan cusub imika dalkan Soomaaliya dhibaato haysato qaxa dagaalkan socda maxaa dawladdiinu maadaama dad Soomaaliyeed yihiin maxaa ku caawin kartaan maxaa ku caawiseen seesa ula dhaqantaan dawladda cusub ota aad waxaan uga xumahay in Soomaaliya ay dagaal ka socdaan oo dad Soomaaliyeed dhimanayaan oo dhibaataysan aad baan uga xumahay intii dhibaatayna Ilaahay u naxariisto dawladda imika dhaatay kulmiye waxyaabaha imika lagu dhaliilay mucaarad ku dhalay waxa kamid ah wax farafaraysan oo la xiriidaan koonfur ota koonfur dawad ummad Soomaaliyeed weeyaan wax badan bay naga dhaxeeya inkastoo kala dawladnahay oo day inagu aynu la noqonay dawladnimadii la soo noqonay de haddana dad bay naga dhaxeeya hanti bay naga dhaxayso ilaa haddana wax xisaabtamay oo ma guuraan oo meel walba ama dibadda ha noqoto ama dalka gudihiisa ha noqotay ayaa jira ilaa haddana wax xisaabtamay mashaakilka wixii mashaakil naga dhexdeena de labada dal dhex yaala de waa wax la isugu iman karo la xalin karo laakiin dhibaatada maanta haysataa koonfur xukuumadda cusub ee kulmiye meel walba way ka sheegtaa fagaar kasta ka sheegtaa shir kasta ka sheegtaa in ay ku dhameeyaan arintooda nabad mana qareyso xukuumadda kulmiye waxay yiraahdaan war nabadan adoonaysa annaga soo martay dhibaato annaga soo martay qaabkan uu galay ee laga soo bilaabay hoosta beesha laga soo bilaabay la soo soconay ilaa dawladda maraya habeelaadkii lagu soo markii dambe dawladda loo soo gudbay war qaabka qaabahay inuu ku heshin kartaan ma jiro waanu sheegnaa mar walba waanu tilmaanaa shirka war qaabkan uu galay annagu naga tilmaan qaata oo habkan uu galay aan ku guuleysanay waa qaabkaasi qaabka raac hadii ay qaabka raacaan shirka kuma jiray guuleysanaya laakiin waxaad moodaa hadda inaan loo jeedin oo xukuumadda banaanka laga soo dhisay ilaa maalintii dagaalkaas bilowday ee koonfur dad banaanka laga soo dhisay waa Nairobi waa Djibouti waa Yemen waa gacan shisheeye ku jirta waan gartay waxa wanaagsan in ay sidii Somaliland ay isu habaysay ee ay waxa dhibaatada inuu xaliyaan in hoos soo noqdaan xogay aad baad mahadsan tahay Smash Studio laga baaqaya waqtiga waa yaryahay waxaan maleynayaa muddo nala joogaysaa wax qorshe oo ku qorsheysan meeting amba meelo dadka bulshada reer Somaliland Sweden kula kulmaysid dadka qabteen u sheegtay ma jirtaa wallahi waan jecel la soo xiriiray inaan badan oo madaxda jaalida aan noqoto ama waxa ku mid noqotay guud ahaan in ay hadda يعني قبل كجران وانا جعل بلا إنان كور بحيو حالة ودنكي يالكو حمريان دورشوينكي واحد بدن واحد جرا دلو باهي من كجرو الباهي لبض يرمان واحد ما ضدك ونوع على عميدنا إن شاء الله دي لها يراهدو ما دامك وقت يسكسو جوبي وحن في ليا إن مرة بدن نوع من كرتيد ومساعة سوي كرنا إن حاجة أدبن مارتي كوج مهد علنيا عندنا برنامج كوج ماضي وأدبن ما صنتها ولا ماضي أنت واحد كسر جبيرنا برنامج قلبته هدي برنامج كانوا يدين دافو واحد كيلي كرتان ويب سايت كوريات tv.com هكذا كده داون كرتان وأنا قاسمة أدبن ما صنتهين كلامون أحسن